السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا كحران كنال كاتنا كسو دوادا برنامج كورجوغا او الله وإنو كيغنو أرماها بلشدا ما انتنا واحد ديرادو كسارينا برنامج دنكا إيوه إيتوبيا إيوه حيابيه كسو كردي دولة ديغان إيه سومالي ستيت إن كسو دوا يوم كله هاي عبد الرشيد برنامجك ودوه هي قصفة إن عبد الرشيد إن وقرين وحدوني إنا وحكاوي ديو دينعا إيوه إن قدها إن إيتوبيا inagoo dib ugu soo laaban doona xaaladda ugu dambeysay ee Somali State cabdirashiido waxaa baaqday macnaha kulankii ay yeelan lahaayeen ama kala fadhigii baarlamaanka kulankaasi sababuhu u baaqday waxyaabihii looga hadli rabay kulanka bandone haddaan u sharaxdo waa maasantahay qaasim shan ka warqabno maanta ayuu qorsho u ahaa inuu furmo kala fadhigii baarlamaanka maamulka Somali State ama dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Somali State baarlamaanka kala fadhigan waxaa qorshaha koobaad lagaga hadli rabay wuxuu ahaa maadaama oo wadanka lagu jiro miisaan sanadeedka Ethiopia tirsiga Ethiopia 2013 ayaa waxaa la rabay in laga hadlo ama lagu ansixiyo miisaaniyadii sanadlaha ahayd ee loo qoondeeyay maamulka Somali State kaas oo ajendaha koobaad ah waxaa soo kale laga hadli lahaa ama qorsho u ahaa in laga hadlo arrimo la xiriira xaaladda uu ku jiro dalka Ethiopia guud ahaan gaar ahaan maamulka ama gobolka Somali State xaaladaha uu haatan kulaalayo oo ah maadaama Ethiopia suuragal tahay xilligani caqabadaha iyo mudaharaadyada iyo maxaa la yiraahdaa colaadu ay meelo badan oo Ethiopia ka holcayso qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa waxaa kaloo jira warar sheegaya inay suuragal tahay inay baarlamaanku ay ansixiyaan ku ansixiyaan ama cod ku sheegaan in ciidanka deegaanka ee loo yaqaan liyu booliska in loo gudbiyo oo Ethiopia kale loo diro si ay uga qayb qaataan nabad ilaalinta ama xasilinta ay sheegatay Ethiopia in ay doonayso inay ku xasiliso goobaha ama gobolada ay ka socdaan colaadaha ama dagaaladu ka socdaan laakiin shacabku ama dadka falanqeeya arrintaas waxay arrintaas ku sheegayaan ma ku tilmaamayaan in Ethiopia rabto in ciidanka deegaanka ee liyu booliska oo dabcan ah ciidanka xagga ciidan marka la yiraahdo ciidan deegaameed ciidanka ugu awoodda badan Ethiopia in ay doonayaan in ay ka qayb qaataan xasuuqa la doonayo lagu xasuuqo shacabka iyo ummadda Oromiya ee dariska iyo walaalaha la ah maamulka Somali State cabdirashiido ciidanka deegaanka ee liyu booliska waa ciidan loogu talagalay ilaalada deegaanka maxay tahay sababta loo geenayo dhinac kale si ay uga qayb qaataan nabad sugidda gobolka kale qaasim ka warqabno ciidanka liyu booliska asaaskiisa ama wixii gundhig u ahaa wuxuu ahaa ilaalinta inuu la dagaalamo jamhadihii ka dagaalami jiray gobolka sida jamhadii ONLF iyo jamhadii UWSLF iyo sidoo kale nimanka Soomaaliya ka dagaalamo oo in badiya xuduud wadanka Soomaaliya gobolku la leeyahay ka soo talaaba ciidankaas markii la aasaasay waxa uu wax badan ka bedelay ammaankii gobolka dad badanna uu ku dhibaateeyay oo barigii systemkii hore ee xukuumadda TPLF dad badan oo shacab ayay xasuuqeen oo dhibaato badan u geysteen isla sidoo kale ciidanka liyu booliska khilaafaadkii horaantii 2017 iyo 2018 waxa uu weeraro ka geystay ama qayb ka ahaa colaad aakhirna sababtay dad badan oo Soomaaliyeed lagu xasuuqo oo ciidamadii liyu boolisku waxay ka qayb qaateen baa lagu eedeeyay dagaalo ka dhacay xuduudka u dhexeeya Oromiya iyo Soomaaliya xuduudka Oromiya iyo Somali State marka ciidanka asaliyan waxa lagu talagalay inuu deegaanka uu arrinta deegaanka uu gobol walba xasiliyo Oromiya waxay leedahay ciidamo liyu boolis la yiraahdo liyu boolis markuu waa special force waa booliska gaarka ah hada booliska gaarka ee Soomaaliya haram cali yiraahdo waxa laga soo minguuriyay liyu booliskaas marka ciidamada gaar qoomiyad walba waxay leedahay ciidan deegaaneed laakiin maadaama ciidankani uu yahay ciidan tababar leh ka tababarka military kale leh uu yahay ciidan dhisan awood leh oo hubaysan uu yahay ciidan fara badan yahay oo ciidan aad u tiro badan uu yahay haddii wadanku uu xaalad degdeg ah galo ma oy arrintu uu maareyn waayo ciidanka military booliska caad booliska federaalka hadduu maareyn waayo waxa weeyaan qayb ku qaadan kara ama kama qaadan karo dabcan dastuurka markii la hagaajinayo ciidan la sameynayo waa la koobaa ciidanka liyu booliska ma soo xiri karo qof meel hebla jooga waxaa shaqada iskale boolis federaal tusaale kale qofka dambi ka gala Somali State ee Oromiya yaa soo xiri liyu booliska ma soo xiri mise boolis federaal ba soo xiri mise booliska deegaanka soo xiri saddex ciidan meesha jooga mid waa boolis federaal mid waa booliska dowlad deegaanka walba waxay leedahay boolis waxaa kaloo jira haddana
booliskan liyu booliska la yidhahdo booliska gaarka ah marka labada boolis ee boolis federaalka iyo booliska deegaanku iyo ciidanka liyu booliska ka miisaaniyad iyo awood badan oo ka taya badan waa ciidan sida militariga loo tababaray marka ciidankani maadaama uu ciidan tababaran yahay ciidan awoodna leeyahay isla sidoo kale uu ciidan tiro badan yahay oo maanta aysan jirin gobolka wax jamhada ka dagaalamaysa ma ka qayb qaadan karaa xasilinta gobolada kale wadanka waa arrin u baahan nafsaka sharciyan in la isweydiiyo maxaa kalifaya in ciidankii deegaanka loo raro muxuusan noqon doonaa hadda boolis federaalka ciidanka boolis federaal ninka boolis federaalka ah ee ku sameeyay gobolka Bishaangul gobolka Tigray Anfar ama Axmaaro ama Dabuub wax ku sameeyay waa boolis federaal laakiin booliska booliska Soomaalida ama booliska Oromia ama booliska Anfarta haddii ay intii la qaado la geeyo booliska Anfarta haddii la soo qaado oo la keeno ismaamulka Soomaalida ama Somali state waxay noqonayaan booliska Anfarta ayaa xasuuqay ama dhibaato geystay muqash way kala bedelayeen marka booliska Somali state haddii intii gawaari lagu daabulo Oromia la geeyo ama Axmaaro la geeyo lama oranayo boolis federaal baa waxay yaa dhibaato geystay ama militariga yaa dhibaato geystay waxay noqonayaan astaan ku suntan community ama bulsho ama qoomiyad kaas ay ka soo jeedaan marka booliska Soomaalida oo la geeyo gobol hebel ayaa maanta dhibaato geystay waxay dhibaatada ku soo noqonaysaa raad ku soo noqonaysaa shacabkii ay matalahayeen ama laga sii qaaday ama Soomaaliya ha ahaadaano ama Anfar ha ahaadaan ama Dabuub ha noqdaan ama jini kala noqdaan marka su'aalahaasi waa su'aalo nafskooda u baahan dadka siyaasiyiinta iyo sharci dejiyaashu inay ka feejignaadaan oo xaaladan socota ee kala guurka ee dhibaatada Itoobiya hadda ka holcaysa inaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada iyo dibindaabyada badan soo maray ee intii system ee Itoobiya isbedelaysa ay dhibaato kaga tagaysay ayna tan noqon haratidan xisbigan abiy wata ee PP haratida ugu dambeysay ee shacabka Soomaaliyeed saameyn lahayd aysan noqonin laga feejignaado waa fariin u dirayno shacabka dhalinyarada iyo cuqaasha iyo sharci dejiyaasha sida golaha xildhibaanada in arrinta ka fiirsadaan inaan ciidanka deegaanka waa ciidan shacab waa ciidan suntan oo ku suntan magaca Soomaalinimo ama magaca qowmiyadeed aan la gudbinin oo meel kale loo gudbinin waxa walba kala dhici karta waa maxaa muhiim ah waxa la isweydiinayaa Itoobiya jiritaankeeda inta lagu sii gaari karaa xaaladda maanta lagu sugan yahay bulshadu way cilowday Itoobiya iyadoo markii hore way hoosta ka walcaysadaan oo uumigiiba kor baxay Itoobiyana dulmi badan baa lagu galay 20 sano u dambeysay dulmi aad weligeedba dulmi aad fara badan baa lagu galay dhiig badan baa lagu daadiyay shacab badan oo masaakiin la laayay la xasuuqay marka dulmigaasi inuu waxay suuragal tahay Itoobiya uu ku noqon lahaa kan maanta galaafan doona marka waxa dhici karta in loo baahdo ciidan wadanka haddii xaaladdu xumaato Itoobiya waxa Itoobiya lagu yahay Itoobiya waxaa jira qodob dastuuri ah qodobka 39 Itoobiya waxa weeyaan qoomiyad walba waxay xaq u yeelanaysaa haddii baarlamaankeedu codeeyo gooni istaag haddii wadankii xaaladdiisu faraha ka baxdo oo wadankii burburo ciidanka booliska waa ciidan hanti qaran ah waa hanti shacab waxaa la rabaa in ciidankaasi iyo shacabka iyo dadka oo dhan intay gacmaha la qabso in xuska la xidho oo lagu dhaqo gooni istaag oo dhaanaga dhan Soomaali state nahay waan ka baxnay Itoobiya colaadooda iyo jinnigoodii iyo waxooda dhan nagala maraan qofka shacab ah ama Oromo ha ahaado ama Xabashi ha ahaado ama Guraage ha ahaado ama Dabuub ha ahaado ama Bishaangul ha noqdo ama wuxuu doonay haade ee socda ee qaxootinimo doonayna hala soo dhaweeyo hala magan galiyo inay dhacdo laakiin in intii la qaado ciidan la geeyo furin dagaal dad shacab oo hubaysnayn lagula dagaalamayo dhibaato badan bay leedahay waxaana xaqiiq oo muhiim ah in la ogaado Ethiopia oo maanta ka xoog badan oo xilliga TPLF ee wadanka Tigray haystay oo una caalamku ogeyn cid hal jiya Oromo dhig istaagtay shacabna hadduu istaago cid damin kara ma laha awood walba u adeegso waxaa kugu filan Masar wixii ka dhacay waxaa kugu filan Libya wixii ka dhacay wixii Tunisia ka dhacay wixii ka socda hadadan ka socda Syria wax ka socda Yemen shacabku system hadduu ka hor yimaado oo midoobo maxaa weeyaan lama soo istaagayo Oromadan waa 40 milyan waxay go'aan ku gaareen inay xoroobaan 30 milyan ka dhimato go'aankan way gaareen markaas dad socdo oo mowqif iyo ajendayaal oo biyo guuraya yaan xaaba laga dhigin dhalinyaradan oo la isku waxaynin waan aaminsanahay waan ognahay qorshaha ninka la yiraahdo Mustafa Xajar uu aaminsan yahay ee ah
xisbiga uu ka tirsan yahay ee aad oo dhacsan fikrado waa niman la yidhi andinage oo axmaara ah. axmaaradaas waxay aaminsan tahay xataa shalay nin general ah oo axmaara maaha general waxa weeyaan madaxa ururka gimbot ururka hubeysan ee gimbot axmaarada wuxuu yihi dimuqraadiyadda Ethiopia laga hadlay dimuqraadiyadda laga hadlay waxaa ka muhiimsan ammaanka gobolka macnaha waxaa weeyaan wax dimuqraadiyadda ma jirayso waxaan af Soomaaliga lagu hadlay iyo diinta islaamka iyo waxaan ismaamulka waxa axmaaradu ma ogolo marka nimankan hadda programka watana xisbigan BBB waa nimankaas waxa la andinate ba wataan marka system ummadda Soomaaliyeed waxaa muhiim ah Soomaalida gobolkaas in laga feejignaado laga digtoonaado indhaha kor ay jiraan la isdaad raacinin waxa maanta socda in la banaanka laga maro wixii qaxootiga idin soo dhaweeya idinkana waxa weeyaan qofna ku xadgudbina dhanka kale Cabdirashiidow colaado ayaa macnaha waxay ka socdaan deegaano kamid ah gobolka Soomaalida bal haddii aad tafasiir naga siiso iyo gobolka Soomaalida weligeed colaadu waa dhaqan Soomaaliyeed oo wax soo jireen ah laakiin muddo adiyaan qiyaas ka hor 8-9 sano arinta colaada beelaha maysan jirin hadday dib u cusboonaadeen inay beeluhu islaayaan wax u badan la isku leynayna waa dhul ana qabiil isku leynay maanta taas waan ku faraxsanahay inaan maanta ana qabiil la isu leynayno oo maanta leeyahay beel ku durtay laakiin beeshii iyada beeshii haddana waxa isku leynayaan dhul balaarsi gobolkan Somali State waa gobol ka weyn wadanka Palestine waa gobol ka weyn wadamo badan oo hadda dadka wadamo badan oo qani ku weyn yahay dadka degan Somali State-na waa wax ka yar 12 milyan macnaha qof kasta haddii dhulka loo qaybiyo oo 12 milyan haddii loo qaybiyo kilomitirka gobolkaasi qof walba oo gobolkaa jooga wuxuu kusoo hagaagaysaa in ka badan 3 kilomitir marka dadka in maanta dhul la isku laayo dhulku waa cidlo in dhul la isku laayo oo iga durug meel durug jiro beer la isku laayo oo hadda aniga gobolka Shabeelle colaad baa ka jirta colaadaas waxa u dhaxaysa dhul beereed aan beerba ka bixin oo dhulkii beeraha ay caadiga aan ahayn oo liidha walaalgo ay dad isku laayeen waxa kale oo jirta hadda shalay maqlayay in dhowr qof lagu dilay magaalada Yoocaale oo gobolka Jara ka tirsan marka meeshaan maxana dagaal beelaadkaas wuxuu salka ku hayaa dhul beereed meesha waliba dagaal ka dhacay waxa la dibiraweyn iyo laanta gubka marka dhankan xarshin ayuu waxaysan waa dagaal markii beer iyo wax ku salaysan dadka beeraleyda marka wixii beer dhulkii beerihii caadiga lama tabacdo dhulkii beerihii caadiga ma tabacdo laakiin systemka hadda socda wuxuu keenay nidaam siyaasadeed oo tuula meel dhisan waxaan ka dhiganayaa maxaa la yidhahdaa qabalan ka dhigan lacag baan ku heli xubin baa iga soo geli taana waxaa ka muhiimsan dhulku ina deeq dhulku ka weyn yahay marka bulshada Soomaaliyeed ee gobolka deganna waa inay ogaadaan dhulkan la isku leynayo inuu yahay dhul la haysto waxaa ka muhiimsan ka fikirtaan sida dhulkan nabadiisa iyo ammaankiisa iyo xornimadiisa iyo madax banaanadiisa looga fikiri lahaa inta akay fudhiso inta la soo qaato dad masaakiin oo geel jira ah la isku beelbeel isku fariisanayo waa hagaag Cabdirashiid aad baad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkeeni koojoog intaas ayaan kusoo afmeerayaa inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga sida ay nabadgelyo